ogeysiis jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxay ogeysiinaysaa ardayda danaynaysa inay ku biiraan jaamacadda sanad tacliimeedka 2024-2025 in ay isdiiwaangelintu ka socoto xarunta jaamacadda ee Baran. jaamacaddu waxay leedahay 5 kuliyadood iyo 11 waaxood ama departments waxayna kala yihiin kuliyadda sayniska oo leh geology iyo computer science waxayna leedahay kuliyadda sayniska lab u gooni ah oo ah labka geology-ga iyo kan computer labka. 2 kuliyadda culumta caafimaadka nursing ama kalkaaliye waxayna leedahay lab u gooni ah oo ardaydu ay ku qaadanayaan practicalka. 3 kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka oo leh qaybaha dhaqaalaha iyo qaybta maamulka. 4 kuliyadda waxbarashada oo leh biochemistry, math and physics, geohistory iyadoo waxay leedahay si la mid ah sida kuliyadaha kale lab u gooni ah oo casri ah. 5 kuliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamka qaybta shareecada iyo qaanuunka ay u kala baxayaan qaybta shareecadu. shuruudaha ardayga laga doonayo ama looga baahan yahay waxay kala yihiin shahaadada dugsiga sare ama haddii aanu haysan shahaadada waxa laga doonayaa inuu keeno kaadhka uu imtixaanka ku galay. waxa sidoo kale laga doonayaa ardayga gal ama fail ay la socdaan 4 sawir oo teesara ah, warqadda dhalashada, waana inuu hore u soo kaxaysto waalid ama qof kale oo ka masuula. diiwaangelintu waxa ay ku eg tahay bartamaha bishan September 2024. wixii faahfaahina waxa kala soo xiriiraysaa lambarada kale ah 07 27 95 ama 07 75 78 33. waxa sidoo kale wici kartaa lambarka ah 07 17 66 44.